10 sano ayaa ka soo wareegtay markii la qabtay shirkii Djibouti ee 2009. Shirka waxaa ka soo baxay dowlad kumeel gaar ah oo isku dhaf ah. Waxaa xigay dowladdii kumeel gaarka looga baxay. Haddana waxaa jira dowlad 3 sano jirsatay ama dowlad jirta 3 sano. Intaa oo tacab ah kadib, weli dowlad hanan karta Jamhuuriyadda Soomaaliya ma dhisna. Dhabbihii lagu heli lahaa dowladdaana maanta laguma taagna. Iyadoo aan la soo afjarin colaaddii sukeeye oo aan dadka kala fogaaday laysu soo dhoweyn, dowlad Soomaaliya ka dhismaysaa ma jirto. Si loo afjaro colaadda sukeeye oo xal waara loogu helo wax kasta oo ka abuurmay, waa lagama maarmaan in la ogaado wixii dhacay iyo waxa sababay in ay dhacaan marka hore. Waa inaan isweydiinno waxa ku dhacay dowladdii dhexe ee ay dadku wada lahaayeen oo keenay in ay dhacdo ka hor inta aan lagu fikirin dhismaha dowlad kale ee beddesha dowladda. Waa inaan isweydiinno waxa keenay jabhadihii riday dowladdii dhexe inay kari waayaan inay dhisaan dowlad beddesha dowladdii ay rideen. Waa inaan isweydiinno sida loo xallin karo caqabadaha ka abuurmay dowlad la'aanta muddada badan lagu jiray, sida dowladaha qabiilka ku dhisan ee dalka ka jira maanta, ee kooxaha xagjirka ah ee qaraxa joogtada ah ka wada dalka, ee faragelinta shisheeye ee ba'an, iyo wax kasta oo caqabad ah ee hadda jira. Haddii aan ku hormaro waxa sababay inay dhacdo dowladdii dhexe ee la wada lahaa, waa dhowr qodob. Marka hore, waa muhiim inaan xusno inay dowladdu dejisay shuruuc fiican. Qodobadii uu ka koobnaa qorshihii siyaasadeed ee kacaanka iyo xeerkii ay ku dhaqmayeen ama ku dhaqayeen dalka waxay ahaayeen kuwo dhaxalgal noqon kara haddii si dhab ah runtii loo hirgelin lahaa. Marka laga reebo qodobo quseeyey arrimaha dibadda oo runtii ahaa qar iska tuur keenayna Soomaaliya inay cadow badan yeelato, ayaan darro sidii la rabay in loo ilaaliyo shuruucda iyo qodobada muhiimka ah looma ilaalin. Hoggaankii dalka ayaa bilaabay inuu qabiil ku shaqeeyo. Bulshadii qaranka ayaa oggolaatay in qabiil loo abaabulo. Qabiilkii ayaa caqabad ku noqday dowladdii qaranka. Dowladdii loo hanweynaa nidaam kale talisnimo ayay runtii u xubsiibatay. Hal xisbi ayaa dalka taladiisa la wareegay. Halkaa xisbi waxaa hoggaamiye ka ah madaxweynaha dalka. Taladii dalka waxay gacanta u gashay hal qof. Nidaam qabiil oo qaybi oo xukun ah ayuu rajiimkii adeegsaday si uu xukunkii uu isagu haysto u ilaashado. Dhaqaalaha dalka oo aan kor loo qaadin oo aan la kobcin waxay keentay in dowladdu heli weyso cashuur ay ku maalgeliso howlaha dowladda. Sidoo kale waxay sababtay in dadku heli waayaan shaqooyin ku filan. Dowladdu caawinaad shisheeye ayay ku shaqaynaysay runtii. Dadkana waxaa il shaqo u ahaa ilaha dowladda oo keliya. Lama abuurin ganacsiyo gaar ah oo shaqo u abuura dadka ee cashuurna soo geliya dowladda. Runtiina waxaan ognahay maanta dal caawinaad ku noolaan karaa inuusan jirin adduunka maanta. Dagaal aan laga fiirsan oo aad looga fiirsan ayaa dalka lagu hoggaamiyey. Dagaalkii ay Soomaaliya gashay 1977 waxaa lagu soo jebiyey Soomaaliya. Xiriirkii ka dhexeeyay Soomaaliya iyo Ruushka oo ahaa dal Soomaaliya ka caawinay xagga ciidamada iyo siyaasadda ayaa runtii burburay. Dalku wuxuu halis u galay inay dhammaan la wareegaan gaashaanbuurta Waarso. Ruushka kadib Soomaaliya waxay gacanta u gashay Maraykanka. Mashaariic dhaqaale oo badan ayuu Maraykanku abuuray, kuwa oo loo aaneeyo maanta runtii in ay curyaamiyeen dhaqaalihii dalka ee markiisii horeba aad u sii liitay. Faragelin shisheeye ayaa dalka uga timid tartankii u dhexeeyey labadii quwadood ee adduunka markaa ka talinayay ee kala ahaa Warso iyo NATO. Tartanka ka dhexeeyey Ruushka iyo Maraykanka wuxuu aad u waxyeeleeyey runtii dalka sida aan la socno. Qaladaadkan iyo qaladaad kale oo badan oo siyaasadeed iyo dalkii culummada loo geystay ayaa runtii ugu weyn waxa keenay inay dowladdii kacaanka sumcaddeedii hoos u dhacdo iyo inay kadib lumiso kalsoonidii iyo taageeradii dadka. Dowladdii markay ogaatay fashilka ku yimid, xal ma doonin. Diyaarna uma ahayn inay talada ku wareejiso wax xal heli kara haddii ay xal u weyso caqabadaha siyaasadeed ee soo wajahay markaa. Ayaan darro waxay go'aansatay in ay xukunkeeda ilaashato.
taa waxay keentay inay mabaadi'dii kacaanka iyo shuruucdii u deganaa dalka in ay dowladdu guud ahaanba ka leexato oo garamarto. maamulkii wuxuu bilaabay inuu gumaado wixii u arkay markaa inay ka soo horjeedaan. wuxuu bilaabay siyaasad qayb oo xukun ah. bulshadii ayuu kala qaybiyey. tartan qabyaaladeed ayuu ka dhex abuuray. qabiilooyin gaar ah ayuu si gaar ah u bartilmaameedsaday, isagoo ku eedeynayay in ay taageeraan siyaasiyiin ka soo horjeeda oo ku abtirsada qabiilooyinka. xin, qabyaalad iyo musuqmaasuq ayaa runtii aad u batay. gumaadkii iyo cadaadiskii dowladdu ku haysay dadka wuxuu sababay in shacbigii uu gadoodo. gadoodkaa waxaa hormuud ka noqday siyaasiyiin markii hore ka tirsanaa maamulka dowladda oo mucaarad ku noqday dowladda. siyaasiyiintani lama iman siyaasad ka baxsan siyaasaddii ay ku dhaqmaysay dowladda ee ku dhisnayd adeegsi qabiil si dano siyaasadeed loo gaaro, laakiin way ku daydeen. waxay abuureen jabhado siyaasadeed oo ku dhisan qabiil. walow jabhad walba ay lahayd magac iyo ulajeedo qaran, haddana waxay jabhad walba matashay qabiil gaar ah. isaga ayaa taageerayay, dhaqaalena siinayay. jabhadahan qaar ayaa isku tegey markii xukuumaddii ay dhacday, laakiin isku tegoodu ma noqon mid waara. jabhadahani lama iman qorsho lagu saxo qaladaadkii dhacay ee fashiliyey dowladdii. lama iman qorsho lagu ciqaab mariyo wixii qalad ka galay shacbiga iyo qarankaba si la'aan ah. waxay rideen dowladdii dalka, laakiin waxay ku fashilmeen inay beddelkeed dhisaan maadaama ay runtii kala qaybsanaayeen oo mid walbaa gaarkeed u socotay. fashilka ay jabhadahani ku fashilmeen in ay dhisaan dowlad beddesha dowladdii ay iyagu rideen markii hore waxay sababtay inay Soomaaliya ahaato dowlad la'aan muddo aad u badan. in dadka iyo dalku waxyeelo soo gaaraan dowlad la'aanta awgeed. in taliya kooxeedyo abuurmaan iyo wax badan. in kooxaha xagjir iyo abuurmaan iyo waxyaalo runtii aad u badan inay dhacaan ay sababtay. fashilka xukuumadda iyo jabhadaha awgood shacbiga Soomaaliyeed hiigsigii ay lahaayeen ma gaarin. waxay hiigsanayeen diktatoriyaddu inay dhammaato. qabyaalad iyo musuqmaasuq in la ciribtiro ay hiigsanayeen. dambiilayaashii ku xadgudbay dadka iyo dalka in sharci la marsiiyo ayay hiigsanayeen. shaqooyin in la abuuro, in dalka horey loo socodsiiyo oo horumar dhinac walba la gaarsiiyo ayay hiigsanayeen, iyo waxyaalo badan oo la mid ah. diktatoriyaddii waa la riday, laakiin beddelkeeda lama helin. dowladdii qaranka iyo hay-adihii u adeegayay bulshada ayaa runtii la ciribtiroo la burburiyey. hay-ad dowladeed oo dalka ka jirtaa oo dad ku adeegtaa maanta ma jirto. 28 sano kadib gumaadkii shacbiga loo geysanayay ma istaagin, wuu sii batay. maalin walba dalka waxaa ku dhintay dad badan. ha noqdo mid uu dilay tuug aan sharci ka baqayn, ha noqdo mid ku dhinta dagaalada joogtada ah ee ka socda dalka, ha noqdo mid qarax ku dhinta ama mid ku dhinta dhoof iyo tahriib. waxaa halis ku jira madax bannaanida dalka oo faragelin joogto ah lagu hayo runtii. wadajirkii iyo midnimadii dalka ayaa halis ku jirta. waxaa dalka ka jira dowlado badan, taliya kooxadyo badan iyo kooxaha xagjir ah oo badan. manhaj waxbarasho oo qaran ma jiro. adeeg caafimaad iyo wax lamidana ma haystaan dadka maanta. qabyaalad iyo musuqmaasuq lama ciribtirin, labaduba way sii xoogeysteen. waxaan joognaa xilli qabyaaladda lagu soo doorto hoggaanka dalka. waxaan joognaa xilli qofkii aqoonta lahaa qabiil lagu riixayo. magaalooyinkii Soomaaliyeed qabiil ayaa ka taliya. gobolladii dalka qabiil ayaa la hoosgeeyey. waddaniga Soomaaliyeed kuma safri karo dalka meeshuu rabo. haddii qofku uu ku tiirsanayn qabiil difaaca, wuxuu ku jiraa halis. waxaa la joogaa xilli aad loo burburay oo midnimadii Soomaaliyeed la burburiyey. dambiilayaashii ku xadgudbay dalka iyo dadka sharci lama marsiinin oo lalama xisaabtamin. badankood waa la abaalmariyey runtii. dembi kasta uu ka galay qof walba wuxuu yeeshay qabiil difaaca. waxaa lagu abaalmariyey inay hoggaamiye u noqdaan qabiiladooda. waxaa lagu abaalmariyey in ay jago siyaasadeed ku helaan magaca qabiilkooda. maadaama hoggaanka dalka qabiil lagu doorto, waxaa ugu rajo fiican siyaasiyiinta qabiilka ka tirsan ee dembi ka galay qaranka iyo dadka Soomaaliyeed.
kan dal shisheeye ku soo hoggaamiyey dalka runtii oo madax bannaanida Soomaaliyeed ku xadgudbayey ayaa lagu abaalmariyaa jago siyaasadeed. kuwii dadka xasuuqay xilligii dowladda ayaa jooga iyagoon wax cabsi ah qabin. kuwii jabhadaha ka tirsanaa ee qalad iyo xadgudub sameeyey waxay ku jiraan maganta qabiiladooda maanta, mana jiraan wax ka hadli kara. shaqooyin in la abuuro ma dhicin. ilihii dowladda ee shaqada ugu badan ay dadku ka heli jireen oo aan markii horeba ku filnayn runtii way burbureen. dalka iyo dadka waxaa shaqaalo u ah ama dhaqaalo u ah lacag dibadda laga soo diro. runtii waan la socnaa, ma jiraan ilo dhaqaale oo dadka shaqo u abuura. shaqo la'aantan awgeed dadkii waxay ku jiraan qax joogto ah iyo in ay nolol u raadsadaan dalal kale iyagoo naftooda halis gelinaya. in dalka horey loo socodsiiyo oo horumar dhinac walba ah loo tallaabsado ma dhicin, waayo dalku wuxuu noqday hoggaan la'aan. maadaama uu noqday hoggaan la'aan, ma dhicin in horumar la gaarsiiyo. laakiin wuxuu sameeyey dib u dhac aad u weyn runtii oo adduunka ka reebay Soomaaliya maanta. waa hubantii waxa keenay in hiigsigan la gaari waayo inay tahay fashil ku yimid hoggaankii dalka, mucaarad iyo dowladba. waan ognahay danahooda gaarka ah oo laga hormariyey danihii qaranka inay sababtay in hiigsigan la gaari waayo. waan ognahay in ay runtii ay ku mashquuleen jago dowladeed, aargudsi ay iyagu iska aargudsadaan ama cilbax inay ku mashquuleen. waan ognahay inay ku fashilmeen inay isu tanaasulaan iyo inay dadka runtii u sheegeen dano qabiil ee ayan sheegin dano qaran, iyagoo og hiigsiga la hiigsanayay inuu ah hiigsi qaran ee uusan ahayn hiigsi qabiil. laakiin lama iloobi karo doorka uu shacbigu ku lahaa in la gaari waayo hiigsiga qaran ee lalahaa. dadku kama hortegin jihada qaldan ee lagu hoggaamiyey, iskama qaban hoggaankii qaldanaa. wacyigood uma sheegin inay ka hortagaan qaladaadka laga galay dalka iyo dadkaba. waxay indhaha ka xirteen waxa ku dhacayay ee lagu samaynayey. waxay iska indhitireen dhibaatada ay gaarsiiyeen kan iyaga ka tirsan ee ku kala jira labada dhinac, jabhadaha iyo dowladda. shacbigii wuxuu runtii la kala saftay garabyadii iska soo horjeeday. taa waxay keentay in la waayo wax matala danaha qaranka iyo hiigsigii loo baahnaa runtii in la gaaro wakhtiga. shacbigu kama soo horjeesan in qabiil lagu abaabulo. waxaa loo sheegay in dana qabiil la gaarsiin doono. qaarkood aargudsi ayaa loo sheegay. ma jirin wax isku day ah oo dadku ay sameeyeen oo ka soo horjeestay in qabiil lagu abaabulo ama aargudsi qabiil la sameeyo. markii qabiil lagu abaabulay waxaa meesha ka baxay danihii iyo hiigsigii qaran. waxaa meesha ka baxay rajo kasta ee lagu gaari karay hiigsiga iyo danaha qaran. shacbigu waxay ku fashilmeen in ay iska hubiyaan qorshaha ay wadeen jabhadaha oo ay ka soo horjeestaan wixii qaldanaa. waxay ku fashilmeen inay dowladda kala xisaabtamaan qaladaadkeeda. dalku wuxuu noqday dal aan lahayn runtii waddani mas-uul ah oo shakhsiyan isxilqaama. taana waxay u suurtagelisay hoggaanka xun inuu sameeyo wixii uu rabo isagoon ka baqayn in lala xisaabtamo. runtii waxay ogaadeen in la difaaci doono qalad kasta oo ay galaan, ama qaranka galaan ama dadka galaan. maanta waxaan joognaa runtii meel bulshada Soomaaliyeed ay kala daadsan tahay, maadaama dagaal sukeeye la dhex dhigay, isla markaana hoggaankii siyaasadeed ku fashilmeen inay heshiis guud gaaraan oo iyagu isu tanaasulaan. qarankii Soomaaliyeed wuxuu u kala jabay qaybo badan. qayb walba waxay yeelatay dano gaar ah. danaha gaarka ah dana ka soo horjeedo qarannimada, midnimada iyo dowladnimada Soomaaliyeed waaye. qaybo ayaa raba inay dowlad gaar ah noqdaan. kuwa ayaa raba dowlad goboleed qabiil inay noqdaan. qayb walba waxay xiriir la leedahay dowlado shisheeye oo dan u arka burburka Soomaaliyeed, iyadoo qayb walba ay iska indhitirayso xorriyadda iyo madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliya. kala qaybsanaanta bulshada Soomaaliyeed
kuma koobna qabiil oo keliya maanta. Meesha maanta aan joogno waa meel midnimadii diineed ee qaranka runtii la curyaamiyey. Maanta waxaan nahay bulsho aan lahayn awood ay wax ku qabsato. Waxaan nahay bulsho aan iska qaban karin qaswadayaasha iyo aragtiyada halista gelinaya jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan nahay bulsho aan abaabulnayn, bulsho aan midaysnayn, oo aan lahayn ujeeddo guud. Wax wada shaqaynan aysan ka dhexin maanta. Maanta waxaan joognaa meel qabyaaladda iyo wixii ka abuurmay kala daadashada qaranka la rabo in la sharciyeeyo oo laga dhigo sharci. Qabiil ayaa loo aqoonsaday qaab awood qaybsi iyadoo la xaqirayo xaqiiqda ah in bulshada Soomaaliyeed ay tahay bulsho qaran ah oo mid ah lehna dan guud. Dhulkii Soomaaliyeed waxaa laga dhigay dhul qabiileed oo waxaa loo kala jijibiyey qaab qabiileed. Bulshadii qaranka ayaa loo aqoonsaday inay yihiin qabiilo. Waxaa caadi noqotay in la isugu tahniyadeeyo ciribtirka qarannimada Soomaaliyeed oo loo dabaaldego. Waxaa bulshadii la gaarsiiyey heer ay ka xishooto qarannimadeeda oo qabiil buunbuunis runtii. Waxaan joognaa meel ama waqti go'aana loo gaarayo oo ay waddamo shisheeye go'aan ka gaarayaan xaaladda dalka Soomaaliyeed. Maanta badaheenna waxaa maamusho quwado shisheeye. Qof lagala tashado in la soo galana ma jirto maanta. Dowlad Soomaaliyeed oo awood u leh inay sugto nabadgelyada badaha Soomaaliyeed oo ka ilaaliso shisheeyaha bilaqada ku wada kheyraadka dalka maanta kama jirto dalka sida aan la wada socono. Waxaa la yaab leh qaramada midoobay waxay fasax u siisay wadamada ka tirsan adduunkoo dhan oo qaramada midoobay ka tirsan inay ciidan u soo diri karaan badaha Soomaaliyeed si ay ula dagaalamaan burcabadeed iyo dhuxul Soomaaliya laga dhoofiyo. Waa dhulkii annagu aan lahayn. Waxaan joognaa meel dano ka baxsan danaha Soomaaliyeed ay hirgelinayaan shisheeye iyo Soomaaliba kana hirgelinayaan dalka. Waxaan joognaa meel ay jirto rajo xumo aad u weyn runtii. Waxaan joognaa meel aan lahayn runtii xal muuqda oo rajo laga qabi karo maanta. Ayaan joognaa maanta. Waxaan joognaa meel aan ku jirno halis aad u weyn. Sidoo kale waxaan joognaa meel aan haysano fursad aad iyo aad u weyn. Waxaan joognaa meel khasaaraha ka dhashay dagaalka sokeeye uu naga indha tiray xal iyo horumar. Isla markaana waxaan joognaa meel khasaaraha naftiisu gogol xaar u noqon karo horumar aad u weyn inaan gaarno. Waxay ku xiran tahay sidii aan wax uga baranno wixii dhacay, qalad iyo saxba. Waxaan baran karnaa inay dowladii tahay lagama maarmaan. Waxaan ognahay haddii dowladi jirin in dadka iyo dalku lahayn wax u adeega iyo wax ilaaliya inays heli doonin. Waxaan baran karnaa haddii la rabo dowlad in dib loo soo celiyo inaan qabiil wax lagu abaabuli karin. Sidii ay u dhacday dowladdii dhexe, qabiil ayaa dalka lagu hageeyey. Meesha ay talaxumadaasina dhigtay maantana waa meesha maanta aan joogno. Siyaasadda ku dhisan in qabiil lagu abaabulo bulshada waxay keentay musuqmaasuq, kala qaybsanaan, in tartan loo tartamo hoggaanka dalka, colaadda sukeeye, iyo in dowladdii Soomaaliyeed ay dhacdo isla markaana la waayo wax beddelkeeda keena. Taa micnaheedu waxay tahay qabiil waxba kuma dhisi karno. Waxaan baran karnaa colaadda in la soo afjaro in ay tahay lagama maarmaan. Waxaan ognahay isu soo dhowaanshaha bulshada Soomaaliyeed inay tahay muhiim si ay u wada shaqeeyaan oo dalkooda u wada dhistaan. Sida keliya ay ku suurtageli karto arrintaana waa in ay la soo afjaro colaadda sukeeye oo dadka Soomaaliyeed heshiis laga dhex abuuro. Waxaan barannay khasaaraha uu leeyahay dagaal ee naf, sharaf iyo maalba leh. Waxaan ognahay sida colaaddu u kala disho bulsho hal qoys ah oo runtii walaalo ah. Waxaan ognahay wax qaatay qarniyo in la dhiso inay ku burburiso colaaddu muddo saacado ama daqiiqado ah oo ay abuurto qax iyo barakac. Waxaan barannay kala qaybsanaantu in ay tahay curyaannimo. Waxaan ognahay marka ay bulshadu kala qaybsan tahay inay tahay bulsho aan waxba qabsan karin oo curyaan ah. Sida haddana haysata. Waana lagu soo duulaa waxna ma qaban karno.
waxaan barnay xalku inuu ku xiran yahay bulshada Soomaaliyeed. waxaan ognahay bulshada Soomaaliyeed meeshii ay isku raacdo inuu dalka Soomaaliyeedna aadi doono. ugu dambayn waxaan barnay in isfiirsiga, isficilka, far isku fiiqa, iska foojignaanta, tartanka, colaadda, is-eedeynta iyo waxyaalaha la midka ah inayan ahayn xal ay dhibaatada sii xoojinayaan. waa inaan waxyaalaha aan ka barannay welina aan ka baran karno colaadda sokeeye u adeegsanaa sida aan u soo afjari lahayn colaadda iyada ah oo u soo ceshan lahayn midnimadii iyo wada shaqayntii naga luntay haddaan nahay Soomaali. gabagabadii colaadda sokeeye iyo burburkii dowladdii dhexe waxay sababtay dowladdii dhexe waxaa sababay dowladdii dhexe oo qabiilaysay dowladnimadii ay dadku wadaageen. jabhadihii oo qabiileeyey mucaaradnimadii qaladaadka dowladda lagu sixi lahaa iyo shacbigii oo la kala saftay. waxaa suurtagal ka dhigay inay labaduba qabiileeyaan dowladnimada iyo mucaaradnimada iyo in bulshadu kala raacdo iyaga. waa iyadoo aan laga gudbin qabiil oo aan si buuxda loo qaramayn bulshada Soomaaliyeed. waa hawl loo baahnaa in la qabto ama la isku diyaariyo xorriyadda ka hor. arrintaana dib ayaan uga hadli doonaa haddii Ilaahay ka raali noqdo. si colaadda loo soo afjaro marka waa inaan guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed haddaan nahay qaladkaa wada garaawsanaa, waayo waa qalad la wada galay. isku raacno qaladkaa in la wada saxo iyo sidii loo wada sixi lahaa. ka fogaano qabiilaysiga ka abuurmay qaladkaa. waana inuu shacbigu ka hortagaa in qaladaadkaasi ku noqdaan caqabad midnimada ummadda, madax bannaanida dalka iyo xorriyadda siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo dib u soo noolaynta dowladdii dhexe ee dalka. sababta labaad ee qaramaynta bulshada in loo dejiyaa qorshe dheer ayay u baahan tahay kadib markii la soo celiyay dowladnimadii. arrintan waa gaari doonaa insha Allah. waa in loo gogol xaaraa marka inaan dib dambe loo qabiilayn dowlad iyo mucaarad Soomaaliyeed iyo in ayan bulshada Soomaaliyeed taageerin qalad dambe mustaqbalka. intaa waa in loo gogol xaaraa, waa laga maarmaan. haddii Soomaali isku raacdo inay intaa hirgeliso waxaa xal waara loo helayaa oo guud ahaan la soo afjarayaa colaadda sokeeye si looga baxo marxaladda cakiran oo horey loogu socdo, kalsooni iyo midnimo shacbi dib loogu soo nooleeyo, oo gogol xaar loogu sameeyo dib u dhiska dowlad dhexe oo runtii waxgal ah.